kulanti wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijkeenan xogaha dunida ee ku soo gudbino warbixinada Soomaalida iyo xogta caalamka ee degal kasta. barnaamijkeenan waxaan ku soo gudbin doonaa dhowr sababood oo la cadeeyay in Mareykanku uu ugu guuldaraystay Afghanistan si la midana ugu fashilmay Soomaaliya dagaalka ugu jiro dunida oo muujinaya daciifnimada Mareykanka. Turkiga ayaa qaaday tallaabooyin uu ku buuxinayo banaanaanta siyaasadeed ee siyaasadda Mareykanka uu kaga tagay wadamada Soomaaliya iyo Afghanistan, iyo tallaabooyinka Soomaaliya kala gudboon ee hadda ay qaadayso halashada amnigeeda iyo warbixino kale ayaan idiin soo gudbin doonaa. Mareykanka ayaa dhammaystiray ka bixitaankiisa ciidamadiisa Afghanistan, taas oo soo afjartay 20 sannadood oo dagaal ah oo ku dhammaaday dib u soo laabashada Taliban. waxaa lagu qasbay ka bixitaan degdeg oo bahdilaada. Washington iyo xulafada NATO waxay ka tagtay 10,000 oo reer Afghanistan oo caawiyay wadamada reer galbeedka oo laga yaabo inay u qalmaan daadgurayn. ka bixitaanka Mareykanka Afghanistan kadib waxaa la isku dayayaa in jawaab loo helo su'aasha ku saabsan dalkani isu yaqaana inuu yahay waddanka ugu awoodda badan dunida oo leh ciidanka ugu casriyaysan iyo teknolojiyada ugu horumarsan aanu uga adkaan karin Taliban iyo kooxaha kale ee la midka ah. waxgaradka Mareykanka iyo duniduba waxay la yaaban yihiin sababaha Mareykanku uu ugu guuldaraystay dagaalka casriga ah mid kasta oo uu galo. su'aashu waxay muhiim u tahay haddii ka bixitaanka Mareykanka ee Talaadadii Agoosto 30 ee calaamad u noqon doonto soo afjaridda ku lug lahaanshaha Mareykanka ee Afghanistan, gaar ahaan xilli Shiinaha iyo Ruushia ay horey u sii ruqaansadeen siyaasadooda gobolka. qaar ka mid ah dadka la dhacsan siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa isku dayaya in ay u raadiyaan marmarsiyo in Mareykanku uu guulo ka gaadhay Afghanistan iyo Ciraaq, balse waxaa jira qodob la isku raacsan yahay in Mareykanku uu ku guuldaraystay in xididada uu sibo argagixisada Afghanistan, Syria, Ciraaq iyo Yemen. guusha soo laabashada Taliban iyadana waxay caddayn weyn u tahay fashilka Ameerika. Mareykanku wuxuu galay 5 dagaal oo waaweyn tan iyo 1945, kuwaas oo ay ka mid ahaayeen dagaalkii Kuuriya, Vietnam, dagaalkii Ciraaq iyo gacanka iyo Afghanistan, iyo dhowr dagaal oo yaryar oo ay ku jiraan kii Soomaaliya iyo Yemen iyo Liibiya. marka laga reebo dagaalka gacanka ee 1991 oo lagu tilmaami karo guul weyn, Ameerika waxay ku guuldaraysatay dhammaan inta kale dagaalada. Kantar Malkasian oo sanado badan ku qaatay siyaasaddiisa Afghanistan isagoo ka shaqaynayay maamulka Mareykanka wuxuu qoray buug ku salaysan khibraddiisa uu ku bixiyay The American War in Afghanistan oo la daabacay 1 Luulyo. buuggani wuxuu fiirinayaa dhinacyo xiise leh oo ay sheegeen in dagaaladii dhacay 1945 ka hor ay ahaayeen kuwo dhex maray wadamo Ameerika had iyo jeer way ku guulaysatay dagaalada, laakiin waxay lumisay dhammaan dagaaladii xilligani cusub, halkaas oo dagaalyahanada ay la dagaalamaysa ay yihiin kuwo maxalli ah oo ka itaal roonaaday. guuldarrada waxay muujinaysaa dhibaatada Mareykanku uu kala kulmay Benghazi, Soomaaliya, Saigon iyo hadda Kabul oo lagu qasbay in Mareykanku uu si ceeb ah uga baxo oo degdega. guuldarrada Mareykanka ee xilligani casriga uu kala kulmayo dagaalka Soomaaliya marka laga tago wuxuu horey ugu guuldaraystay dagaalkii Soomaaliya. bisha Oktoobar 1993 ciidamo Mareykan ayaa weerar baan ku qaaday caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. ujeedadu waxay ahayd in la soo qabto Generaal Maxamed Farax Ciidiid iyo xulafadiisii ee muhiimka u ahaa, laakiin ciidamada Mareykanka waxay iska caabin xoogan ay kala kulmeen maleeshiyaadkaasi. 2 diyaaradood oo nooca qubaadka u kaca ee Mareykanka ee Black Hawk ayaa la soo riday. 18 Mareykan iyo 2 askari oo qaramada midoobay ayaa la dilay waqtiga oo Mareykanku hor kacayay howlgalka qaramada midoobay ee lagu magac daray rajo soo celinta. 6 bilood gudahood Mareykanku wuxuu ciidamadiisa kala baxay Soomaaliya. fashilka hawshani waxay horseeday in Mareykanku uu ka digo faragelinta siyaasadeed ee Afrika. marka dib loogu laabto Afghanistan 20 sano kadib, Mareykanku wuxuu ka tagay Afghanistan iyadoo colaadda shacabka ay isu qabaan ay ka sii xoogaysatay xilligii hore, gaar ahaan kala shakiga Mareykanku u abuuray. xisbiga Jamhuuriga ayaa ku tilmaamay ka bixitaanka Mareykanka ceeb qaran oo ah natiijada tooska ah ee fulinimada madaxweynaha Mareykanka Biden iyo karti la'aan. waxayna sheegeen madaxweynuhu wuxuu qaatay go'aan anshax xumo leh in uu ka tago dadka Mareykanka
ee Afghanistan. Dadka badankoodu waxay ku jahwareereen qaabka dowladda Afghanistan ay u dhacday si degdeg ah. Hal sabab oo xaqiiqo ah waxay tahay Mareykanku in isagu uu keensaday dowladda Afghanistan oo uu arkayay mid uu ku difaaco danihiisa Afghanistan, balse aysan ahayn dowlad matalaysay shacabka reer Afghanistan. mana jirto mabda ka dhexeeyay ciidamada Afghanistan marka laga reebo kaliya mushaarka Mareykanka. Jawaabtiisa Afghanistan waxay noqotay awalba dalkani inaan dhisno umaanaan imaan, laakiin waxaan kaliya u imaanay dilalka shakhsiyaad cadow u ahaa Mareykanka. waxaa xusid mudan soo gelitaankii NATO ee Afghanistan. waxay soo galeen iyagoo midaysan dalalka xubnaha NATO, balse hadda waxay u kala baxsadeen iyadoo dal kasta uu doonayo inuu daadgureeyo shakhsiyaadkiisa. dalka kaliya ee ka tirsan NATO oo weli bixinaya siyaasadda Afghanistan qaab la isugu soo dhaweeyo ayaa ah dalka Turkiga oo muujinaya dareenkiisa muslimnimo. Turkiga iyo Qatar ayaa hadda loo badinayaa inay ka caawin doonaan dadka reer Afghanistan in dunida ay xiriir la yeeshaan haddii ay aqbalaan kooxda mintidiinta ah si garoonka adeegyada ay dib u soo celiyaan. waa toddobaad dunidoo dhani ay isha ku haysay Afghanistan, balse maxay uga dhigan tahay tallaabadani Soomaaliya waxaa ka jira laba arrin oo kaliya oo mudan in wax ay ka bartaan arrinta Afghanistan, waana dhinaca siyaasadda iyo dhinaca nabad ilaalinta. jahwareerka ugu xun ee Soomaaliya waxay inta badani ay isugu ururaysaa siyaasad xumada, waxayna qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaalida aaminsan yihiin in Mareykanka uu yahay been ma sheege. mararka qaarkood siyaasiyiinta Soomaalida kulanada ay la yeeshaan siyaasiyiinta kale ee Soomaalida oo dalka la wadaaga waxa uga sii muhiimsan in ay la kulmaan u qaybsamaha Mareykanka ee Soomaaliya oo ay sawirro la galaan. Soomaaliya waxay la wadaagtaa Afghanistan inay ka mid tahay meelaha dunida ee Mareykanku uu kula jiro dagaalka mintidiinta oo ka geysto duqeymo Soomaaliya, halka uu ka ilaaliyay awoodda ciidamada Soomaaliya cunaqabatayn saaran darteed. Mareykanku wuxuu taageeraa ciidamada Soomaaliya qayb ka mid ah, gaar ahaan ciidanka danab iyo qaar kale oo ka mid ah ciidamada maamul goboleedyada, kuwaas oo intooda badani dowladda aan wax amar ah ku hoos tegin. AMISOM oo muddo dheer joogay Soomaaliya ayaa ku guuldareysatay in ay cidhib tiraan cidda ay la dagaalamayaan oo la yaqaan halka ay ku sugan yihiin. guulaha ciidamada Soomaaliya ay gaari karaan waxaa curyaamiyey cunaqabataynta hubka ee saaran. tusaale ahaan ciidamada Mareykanka uu tababaray ma aha kuwa fuliya wax ka badan danaha Mareykanka uu leeyahay. Mareykanka wuxuu ciidamadiisa kala baxay Soomaaliya bilooyin ka hor waqtigii ay ugu xumayd ee Soomaaliya oo ay ka taagnayd buuqa doorashooyinka, taas oo buuq abuurtay indhayaasha Soomaaliya. xilligaasi oo qabaqablayaasha siyaasadeed ee Soomaaliya ay eedayn u jeediyeen ciidamada Turkigu tababaray, maadaama ay yihiin ciidamada kaliya ee haysta tababarada wanaagsan ee dowladda toos u hoostaga. waxaana qaar ka mid ah siyaasiyiintaasi Turkiga ay ku colaysteen in Muqdisho dibdhis uu gelinayo in ka badan gobollada kale ee dalka. sida Afghanistan marka la eego, Turkigu wuxuu u muuqdaa inuu yahay mid isku dayaya tayeynta ciidamada Soomaaliya iyo horumarinta kaabayaasha Soomaaliya. sidoo kale si ka duwan Mareykanka, waxay aad uga fogaatay Turkiga inay dhex gasho khilaafka siyaasadeed ama kala jeclaysiga siyaasiyiinta Soomaalida. dhaga kale, halka Mareykanka 20 sannadood uu Soomaaliya u adeegsanayay duqeymaha cirka oo aan loo aaba yeelin, Turkigu wuxuu 10 sano gudahooda uu isku dayaya inuu bedelo wejiga ciidamada Soomaaliya, kuwaasi oo aan ku koobnayn sida Mareykanka oo kale tiro yar oo danihiisa ilaalinaya. si kastaba, iyadoo toddobaadyadani ay sii xogeysteen qalalaasa Afghanistan, Turkiga ayaa u muuqda in uu wax ka bartay siyaasadda Afghanistan oo uu doonayo inuu horumariyo danaha amniga ee Soomaaliya, iyadoo Turkigu uu martigeliyay taliyaha ciidanka xoogga Soomaaliya Jenaraal Odawaye Yuusuf Raage iyo taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya Jenaraal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar toddobaadkani, taa oo muujinaysa inuu doonayo Turkigu in wax badan uu ka bedelo awoodda ciidamada Soomaaliya.